Now my hand is in European Union now. In Europa! kani waa aniga oo ku sugan caasimadda Nicosia, caasimadda keliya adduunka laba wadan u qaybsan. keliya haddii aan ka gudbo laynkan Jordan passport also? waxaan gelayaa Yurub iyo midowga Yurub, waxaana la yidhaahdaa Jamhuuriyadda Qubrus. dhanka kalena waxaa ku taalla Jamhuuriyadda Turkiga ah ee waqooyiga Qubrus, taasoo wadan keliya oo aqoonsan adduunka aanu jirin. laynkan akhtarka ayaana kala qaybiya labadooda. qaybtan jasiiraddu waa halka ay degan yihiin ciidamada midowga Yurub, waxaana lagu magacaabaa buffer zone. Nicosia is a divided capital. Whenever we go, we're going to see a border. Our island is very small to divide to two parts. Before we live together. tani waa Qubrus, halkanina waa Yurub. waa meesha keliya ee aad Yurub uga tallaabi karto. balse haddaba maxay ugu horreynta u kala go'een? sababta ka dambaysaana maxay ahayd? sidoo kalena halkan dadku siday ugu nool yihiin. Cyprus is Britain's base in the Middle East, and the Middle East is under constant pressure. For them, we are not existing country. okay saaxiibayaal, waxaynu tegaynaa waqooyiga Qubrus. waa qayb ka mid ah Turkiga, fiisana lagagama baahna, laakiin madaarkan waa madaar caalamiya. waxaynu tegaynaa Qubrusta waqooyi. waxaa jira Qubrusta waqooyi iyo Qubrusta koonfureed. sidoo kale Ingiriiska iyo midowga Yurub labaduba way degan yihiin halkan. jasiiraddan qiso kale ayay leedahay. Cyprus, whose problem has threatened to split NATO, is in fact vital to NATO. We are now North Cyprus, Nicosia. Ergin Airport. Yes, North Cyprus. North Cyprus. No need visa. No. Can I have... Let's go. By the way, Nicosia is the last divided capital in the world. waa dowladda keliya adduunka kala qaybsan. qaybna waa Giriiga, qaybna waa Turkiga. Throughout modern history, Cyprus has never been Greek. haddaba qisada jasiiraddan waxay soo bilaabantay markii dowladda Cusmaaniyiintu qabsadeen jasiiradda yar ee Qubrus sanadkii 1571 si ay u gumaystaan, iyagoo haystay waqti gaadhaya 3 qarni ilaa laga soo gaadhayay sanadkii 1878 markaas oo Cusmaaniyiintu maamulka jasiiraddan ku wareejiyeen Ingiriiska Ottoman Empire rent our island for British. si uu uga caawiyo dagaalkii ay Ruushka kula jireen. balse haddaba bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka ee sanadkii 1914 dowladda Cusmaaniyiintu waxay xulafo la noqdeen Jarmalka, iyagoo kasoo horjeestay Ingiriiska iyo xulafadiisii. sidaa darteedna Ingiriisku wuxuu go'aansaday in jasiiraddan uu gebi ahaanba sidaa kula wareego. They create the roads for them. They change the constitution. ilaa ay xornimada ka qaadatay sanadkii 1960. By which, after 82 years of British administration, Cyprus formally became a republic. That country has 3 guarantors, Turkey, Greece and England. And we start to live in together. Midnight in Nicosia, and Sir Hugh Foot entering Parliament is followed by Archbishop Makarios, who is to take over as first President of Cyprus. haddaba Qubrusiyiintii dhanka Greek way diideen dastuurka waddanka ee cusub, wax ka beddelayayna ku sameeyeen. tan oo horseeday khilaaf iyo dagaal ka dhex qarxa iyaga iyo Qubrusiyiintii dhanka Turkiga. dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladaas waxaa ugu caansanaa xasuuqii uu geystay ururka xagjirka ah ee Ayoka bishii Disembar sanadkii 1963. The number of murders committed by IOKA, the underground terrorist organization, steadily mounted. gurigan ma u jeedaan saaxiibayaal xadka ku yaala sanadkii 1974 waxaa dab qabadsiiyey Qubrusiyiintii Giriiga. As the demand for partition became insistent. 1974, the Turkey troops landed, and in 2 parts, the Happy Peace operation complete. xeebtan ma aragtaan 40 sano ka hor ciidamada Turkiga ayaa soo degay si ay u badbaadiyaan Qubrusiyiintii Turkida ahayd. Che 1974, it's a landing ship who carried the Turkish troops to this island. The Turkish airborne invasion had begun. ciidamadii Turkiguna waxay gacanta ku dhigeen 7% dhulka jasiiraddan oo dhan. Over 1,000 Turkish troops land on the plains around Gonyeli, less than 2 miles from Nicosia. okay haddaba maxay ahayd sababta ay ciidamada Turkiga u soo fargeliyeen arrintan?
sanadkii 1974 ururkii argagixisada ahaa ee Ayoka ayaa isku dayay inay afgambi ku sameeyaan madaxweynihii Qobrus ee Greek ahaa ee lagu magacaabi jiray Makarios iyagoo caawimaad ka helaya qaybo ka mid ah ciidamada militariga ee Greeka waxayna ahayd shirqool la soo mareegay si jasiiradan loogu daro Greeka. It was an attempted coup against Makarios in July. waxaana halkaa laga bilaabay howlgallo isirsifayn ah oo lagu beegsanayay Qobrusiyiintii Turkida ahaa. Targeting Turkish Cypriots. Tanoo sababtay in ciidamada Turkiga soo farageliyaan si ay u ilaaliyaan Qobrusiyiinta Turkida kuwaasoo ahaa kuwa lagaga tirada badan yahay jasiiradda iyagoo ka ahaa 8% keliya dadka jasiiradda deganaa. sanadkii 1983 waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qobrus. UN ma aqoonsan dawladdan cusub. ciidamadii Turkigana waxay ugu baaqday inay iskaga baxaan iyagoona u tixgeliyay dhul uu Turkiga gumaysi ku haysto. layn akhtar ayaana lagu calaamadiyay xadka u dhaxeeya labada dawladood kaasoo fidsan masaafo 180 kilomitir oo bari ilaa galbeedka jasiiradda ah. In a way it's good to be removed because well it's a good step forward towards peace movement, a solution movement. dadaalada lagu mideynaya jasiiradani way sii socdeen. Greek Cypriots and Turkish Cypriots alike who want to end the division of their country. Greek Cypriots have voted 76% no for this solution. laakiin ilaa imika wax midhodhal ah lagama hayo. So we are in the north. We are in the north. This is the south. Buffer zone and south. Cyprus Republic, where we are, northern Cyprus. halkani waa waqooyiga Qobrus waa dhanka Turkiga. kani waa ka ay ku magacaabaan laynka akhtarka. halkan waxaa gacanta ku haysa UN-ta waana iyaga kuwa halkan u bixiyay buffer zone waana aan ka caagan hubka si loo kala ilaaliyo khilaafaadka labada dhinac. waa layn dhan sida aad u jeedaan halkaasi waxadka laga tallaabo. Yeah, now Crossing. they're passing south to north now. anigu ma ka tallaabi karaa? haa waad ka gudbi kartaa. iyadu ma ka gudbi kartaa? may. haa sax anigu fiisa ayaan wataa. iyadu fiisa ayay u baahan tahay miyaa? halkani waa green line in la maro waa mamnuuc UN-ta ilaalisa laakiin Turkiga laftiisu halkan uu yimid si uu gacanta ugu dhigo. garoonkan ayuuna ka dhisay. kubadda ka soo dhacday sidaad aragtaan laakiin markiiba uu ka soo qaatay dib ayuuna ugu noqday garoonka waayo laynkan in laga gudbo waa mamnuuc. kan waa albaabka laga gala buffer zone-ka. Turkida ayaa halkan garoon ka dhistay iyaga uun baa loo ogoliyay. anigu imika haddaan ka tallaabo halkan way ii dhammaatay toos baa la ii tarxiilayaa. So you don't want to go? No, I cannot go. I don't want to go to jail. I don't have visa. I don't have... no, I cannot go. Let's drink Turkish coffee. halkan kofee Turkiya ayaa laga cabaa ama shaaxba halkan UN-ta ku sugan. xadkan laakiin waa meel aad ku dawaqaysa runtii. laga yaabo Yurubiyaanka inay u fududahay halkan inay ka tallaabaan laakiin Turkida way ku adagtay waayo waa wax aad la yaab u ah in dhanka kale aad arkayso balse aanad u tallaabi karin. fiisa aad u baahantahay soo maaha si aad uga tallaabto. haa Schengen fiisa ayaad u baahan tahay. marka adigu imika dhanka waqooyi ayuun baad joogtaa soo maaha. haa 7 sanaad halkan ku nooleed umanaad tallaabin dhanka koonfureed. may dabcan halkaasuu baan ka eegi jiray laakiin kamaan tallaabin. halkaa kofee yar ayaa ku yaalla. xaflad ayaa lagu qabtaa maalmaha qaar. dadku way salaamaan laakiin intaas wax ka badan ma jirto. balse sidoo kale UN-ta iyo ciidamadu way joogaan. mararka qaar shidaalka ayay kala qaataan ama suuqa ayay wada tagaanba. alaabtooda ayay soo iibsadaan kadib way soo noqdaan. dhankaa maxay u imaadaan? may ka jaban tahay xagga shishe? haa dabcan halkaa euro ayay isticmaalaan halkana liira. waan ku farxsanahay inaynu kulano saaxiib. magacaaga muxuu ahaa? waliid. haa waliid 7 sano ayuu ku dhex xidhnaa waqooyiga Qobrus. uu tegi kari waayay Qobrusta koonfureed. imika waxaanu joognaa Qobrusta waqooyi sidaad aragtaan jirkeyga oo dhan laakiin imika gacantaydu waxay joogtaa Yurub. Is in European Union now. In Europa تخيل والسبع مرة بأوروبا بكون. laakiin haddaynu ka soo celinno waynu ka soo baxnay. waayo maxaad uga soo noqotay? waxaan rabaa inaan isticmaalo lacagta Turkiga. Is it cheap? Yeah. may ka jabanta halkan Qobrusta koonfureed. haa xadkan ayaana kala qaybiya. ma maqlaysaan wuxuu leeyahay xadkan bayna kala qaybiya. miyay idin kala qaybiyeen? haa shabagan ayay si fudud noogu kala qaybiyeen. halkaas waa Qobrus waa waddo ka mid ah sidaad u jeedaan Yurub. waa halkan haddaad xadkan ka gudubto Yurub baad gelaysaa. xataa UN-tu halkaa ma joogto. UN-tu xaggan bay degan tahay. Greek souvlaki is here. Turkish kebab is here. خطوات في الجزيرة الدولة العجيبة غريبة. halkan si aad uga gudubto waxaad u baahan tahay baasaboor iyo fiisa iyo dokumentiyo badan sidoo kale. haddaad halkan istiraado ka bood way kula socdaan laakiin si fudud baaba lagu boodi karayaaye. haa waxay u muuqataa mid fudud laakiin halkaa ma aragtaa ciidan baa degan. haa booliiska meel walba jooga.
Hello. halow cimiladu halkaa waa sidee soo ma fiicna yurub waa sidee ka warrama Europa. Goodbye. dad baa ku riyooda inay yurub galaan haddaba intaynaan gudbin qubrista Greega waa inaynu qaybtan kale sii dhex galnaa balse haddaba haddii aan qubrista Turkiga dowlad ahaan loo aqoonsanayn oo dowladda Turkiga oo keliya ay aqoonsantay sidee shirkadahan caanka ah badankooda halkan xarumo ugu leeyihiin imika waxaynu tegaynaa bartanka Nicosia waa caasimadda qubrista Turkiga laakiin halkan shirkada caana degan soo maaha haa waxaynu arki karnaa shirkada caana oo weliba shirkadii originalka ahaa halkan qayb ay ku leeyihiin balse dowladdeeda ma aqoonsana ma garanayo sidee ku dhacday iyagu waxaynu arkaan dowladaan jirin laakiin waayo halkan maxay dalxiisayaal badan u ima waayeen baddii iyo nature-kii iyo suuqyadiiba way leeyihiin halkan dad yar ayaa yaqaana oo soo booqda wax fiisaa kaagama baahna haddaad Turkiga ka imanayso hadda waxaan ku suganahay caasimadda Nicosia waa caasimadda keliya kala qaybsan adduunka ina mariya saaxiib yaalaan wax badan idinka sheegay halkan Nicosia gidaar ayaa ku wareegsan iminka dhexdeeda ayaan joognaa magaalada Nicosia gidaarku ku wareegsan yahay laba ayuu si kala qaybsantay imika waxaan ku sugannahay qaybta waqooyi koonfurtu waa Greek waqooyiguna waa Turkey The announcer warned the Turkish community in Cyprus to evacuate their homes and find shelter underground. 1947 kadib 65,000 oo Turki ah ayaa imid xaggan waqooyiga sidoo kalena ku dhawaad 200 oo kun oo Qubrusiinta Greek ah waxay iyaguna mareen dhanka koonfurta kadibna laba ayaa loo kala qaybiyay imika waxaanu tegaynaa saaxiibayaal Buyukhan taasoo la dhisay Cusmaaniyiinta ka hor sida ay sheegeen Cusmaaniyiinta 3 qarni ay jasiiradan gumaysanayeen waana sababta halka looga helayo Qubrusiinta Turkida ah iyo waliba Qubrusiinta Greek ahba waxaad dareemaysaa halkan markaad joogto in Turkiga aad joogto waxaana oo dhammi waa kabaab Turkish ah halkan baynu ku sugannahay imika ma arkaysaan tani waa caasimadda kanina waa dhanka Turkiga dhankana waa Qubrus haddaba Qubrusta Turkiga gaar ahaan dhanka xeebta jasiiradda iyo weliba halka u dhaxaysa iyaga iyo Qubrusta Greega waxa ku taala magaalo Laga Guuray saaxiibayaal haddaba xeebtan baan joognaa Miami la moodo waxay ku taalaa Qubrusta waqooyi halkan cid kuma noola This is Varosha, Marash in Turkish. It's been a ghost town since 1970. halkani sidoo kale waa aag hubka ka caagan Varosha halkan ayay ka bilaabantaa tan waa magaalo cid degan aanay jirin bal eeg sida loo xidhay baabuurtu halkan waa ka mamnuuc inay galaan kaliya gawaadheer yar oo electric ku shaqeeya ayaa ka shaqaynaya oo jooga iyo weliba baaskiilado tani waa Varosha halkan wax degan ma jiraan waa eber haatan waa magaalo Rooxaanta oo laga guuray waxa laga guuray sanadkii 1947 waa arrin siyaasadeed oo ka dhaxaysa labada Qubrus ee Greega iyo Turkiga halkan waxa maamula booliska Qubrusta Turkiga Do you want to check the bags on? Yes, yes. Wait on. okay imika waxaynu soo galnay Varosha meeshan waxa maamushay UN-ta waa magaalo dhan oo leh guryaheedii hudheeladeedii sidaad dhammaan ka aragtaan xeebta qof degan ma jiro waa magaalo gebi ahaanba maran cid leh oo sheegata ma jirto halkan cid ku noolaan kartaa ma jirto sida magaaladii Japan ee aynu tagnay ee radiation-ka dartii looga guuray halkan khilaaf dartii ayaa looga guuray gaadhigan yar baynu ka haysan karnaa waa ka keliya ee la ogal yahay meeshan waxay noqotay meel dalxiisayaasha soo jiidata balila sawiro magaaladani waxay sidan cidlada ugu noqotay kadib markii Turkigu soo galay halkan sanadkii 1947 ilaa waqti xaadirkana sidii ay u xidhan tahay laakiin sanadkii 2020 ayay fureen in la soo booqan karo balse baabuurta waa laga mamnuucay
way xidhan tahay halkani xataa lug kuma tallaabi kartid xeebta Froosha waa ku dhawaad 6 kiiloomitir kanina waa meesha ugu dambaysa ee laga tallaabi karo waayo 4 ilaa 5 kiiloomitir ayuun baa loo gal yahay in la dhex maro meel walba waxaad ku arkaysaa kafee shopyadan hudheelo meelo la dego waxaa jira iminka qaar badan oo qubursiinta Giriiga oo dalbanaya in guryahoodii dib loogu soo celiyo balse halkan waxaa gacanta ku haya UN-ta iyo booliska Qubrusta Turkiga waxay sheegeen in dhammaan dadkii ka tagay magaaladan ay dhammaantood wali haystaan furayaashii guryahooda ilaa imika Qubrusiinta Greek waa sida Falastiiniyiinta sanadkii 1948 markii ay furayaasha guryahooda la qaxeen waa isla sidii balse arrintan waa mid wali socota oo aan xal loo helin laakiin lama barbar dhigi karo qadiyadda ugu weyn adduunka ee Falastiin iyo isirsifayntii ka dhacday Falastiin kan waa hudheel ka dambeeya baleeg sida ay dhirtu uga baxday waa 40 sano baleeg hudheelkan kale ee laga guuray ee halkan lagaga tagay dhirtan baa sida ugu baxday waa magaalo maran cid ku nool ma jirto waxaan rajaynayaa in maalin uu xalin doono dhibaatadan habeenkii ma cabsiba waa qasab in laga cabsado habeenkii saaxiib yaal nabadgelyo imika xadka ayaan ka talaabayaa 3 saacadood ayaan ku soo noqon doonaa Yurub ayaan u socdaa baasaboorkayga waan sitaa qof kasta halkan kama gudbi kara saaxiibayaal nabadgelyo yalla goodbye see you take care guys waa inaan u gudubnaa dhanka kale ee Yurub saaxiibayaal waan soo dhaafay iyadoo xataa aan la soo shaambadayn si fudud waliba okay imika Yurub ayaan ku suganahay saaxiibayaal kaliya 3 sakan ayay igu qaadatay baasaboorkayga ayuun baan sidaa u tusay kadib uu eegay wuxuuna yidhi waad gudbi kartaa imika waxaan joogaa waddanka Qubrusta Koonfureed waxaan rabaa inaan eego waxa ay kaga duwan tahay dhankii Qubrusta Waqooyi lacagta halkan haddii aan soo saaro waa euro kan waa dhanka Yurub ee Giriiga xigta xadka ayaynu ka soo talaabnay ninkan Anas ayaynu kula kulanay dhanka koonfureed ee Qubrus ma dhalasho Qubrus ayaad haysataa waan haystaa way ayidii ayaa Qubrus ka soo jeeda ma ku hadashaa luqadda Giriiga si fiican baan ugu hadlaa aniga ayidii waa Qubrusiyad u dhalatay waddankan waxa guursatay awowgay oo Falastiin ka soo jeeda halkan markaad marayso waxaad arkaysaa sawirro iyo calamo waxay rabeen inay dib u midoobaan waxay halkan ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin guryahan miyaa laga guuray kani waa dukaan waa laga guuray dhismayaashan dhammaantood waa la xidhay waqtigii dagaalka waa 40 sano ka hor ayay dhammaan xidheen labada dhinacba dhinacan iyo dhanka Turkigaba taloma nin boolisan si qaldan ku duubay no photos sorry okay dadkani halkan maxay ka sameynayaan waxay daawanayaan meelahan militariga dadkan dhanka Yurub waxay daawanayaan dhanka Turkiga kani maleenkii maabka ku yaallay ee kala qaybinayayba waa tan halkii aad maabka ka arkaysay ee kala qaybinaysay labada waddan bay kala qaybisaa laakiin dadka dhinacan Greek way u tallaabi karaan dhanka Turkiga balse Turkidu ma soo tallaabi karaan waayo dad badan oo Greek ah way u tallaabaan dhanka Turkiga halka way ka soo dukaamaystaan sidoo kale shidaalka ay ka soo iibsadaan waayo halkaas ugu jaban yahay shidaalku sidoo kale cuntada xalaashan halkaas ay u doontaan laakiin Turkidu ma soo gudbi karaan soo maaha laakiin farqi ayaa u dhaxeeya Qubrusiinta Turkida iyo dadka Turkida caadiga qofka Qubrusta Turkiga ka soo jeeda halkan waa jasiiradiisii iyo waliba sidoo kale Qubrusiinta Greekaba labadoodaba siday doonaan ayay isugu tallaabi karaan saaxiibayaal imika waxaynu ku sugannahay caasimadda Nicosia waliba dhanka Greek ee Yurub halkan muslimiin ayaa degan laakiin way yar yihiin badankooduna waa qaxoonti dadka ugu badan ee halkan degan waa Kristan laakiin masaajidkan ayaa ku yaala dhanka Greeka sidoo kale mid kalena badda ayuu ku yaalaa markan waxaynu kornay buurtan yar ee aad si fiican uga arkaysa labada dhinac ee jasiiradda halkan wax walba waad ka arki kartaa saaxiibayaal calankaas ma aragtaa waa Qubrusta Waqooyi habeenkii way iftiintaa soo ma aragtaan saaxiibayaal calanka buurta lagu dul sawiray halkan baad ka arkaysaa adigoo ku sugan Qubrusta Greeka si fiican ayaad u arkaysaa oo waadixa waa la weyneeyey
dhanka Greek iyaguna way isku dayeen inay calankan oo kala samaystaan oo ay halkan ku sawiraan laakiin buur sidaas oo kala kuma taala xaggan balse waxa ajiibeen dhulka sidan ballaarnada aad arkayso wad arki kartaa dhanka Turkiga xagganna sidoo kale wad arki kartaa dhanka Greega halkani waa Yurub halkaasna waa Turkiga sidoo kale meesha ay dhacday jasiiradan waa cajiib saddex qaaradood ayaa ku hareeraysan waa qaaradaha kala Afrika, Asia iyo Yurub waana taas sababta ay meel istiraatiiji ugu taalo laakiin waxa la yaabaa muxuu Ingiriisku halkan ka sameeyay Ingiriisku waqti hore ayuu halkan ku weynsan jiray sidaa darteed ay halkan u degeen laakiin waxa la sheegay Ingiriisku badanaa inuu khilaafaad ka abuuro dhammaanba wadamadii ay soo guumeysteen wali waxay rabaan inay sii joogaan waxay rabeen in jasiirada ay raad kaga tagaan wayna kaga tagay runtii laakiin waa arrin xiiso leh soo maaha saaxiibayaal inaad halkan ka daawan karto dhanka Turkiga sidoo kale waxa laga yaabaa in dad ay dhanka kalena naga soo daawanayaan oo iyaguna ay isweydiinayaan maxay midoobi weynay laakiin waa jasiirad qurux badan soo maaha way qurux badan tahay yaa ka tagi kara qofna kama tagi kara dhulkiisa runtii qof lagu qasbo mooyee markan waxaa la kulanay qoystan qobrisiinta Turkiga ah oo degan dhanka qobrista Greega islaantan ayaan waraystay iyadoo ay sheegtay in 47kii ka hor qobrisiintu ay u noolaayeen si fiican waliba ay wada noolaayeen wax dhibaato ahna aanay jirin sidoo kalena waxay sheegtay in wax walba oo dhacay oo Ingiriisku ka dambeeyay oo qarribay way waqtigaas Ingiriis ayaa meesha maamulayay dadka qobrisiinta laftarkoodu way haysteen baasaboorada Ingiriiska way Ingiriisku wadanka oo dhan ayuu xukumayay islaantan asal ahaan waxay ka soo jeedaa Qobrus waxayna dhalatay sanadkii 1948kii waa waqtiga ay dhacday nakbadii Falastiin isla sanadkaas ayay dhalatay Ingiriiska laftarkiis waqtigaas Falastiin ayuu joogay sidoo kale Urdun ayuu joogay sidoo kalena meel kasta Ingiriis ayaa joogay laakiin halkan Qobrus waxay kaga duwaneed Ingiriiska ayaa xukumayay madaxweynuhu Greek ayuu ahaa ra'iisul wasaaruna Turkish Muslim ayuu ahaa haddaba islaantani sidoo kale waxay ii sheegtay sida ay dhibaatadani ku dhacday waxayna ii sheegtay dhibaatadani inay bilaabatay kadib markii dadkii Turkida ahaa ee xilalka hayay xilalkii laga qaaday way dawladda waqtigaas waxa wada maamulayay Turki iyo Greek isku jira labaduba dawladdu way ku wada jireen madaxweynuhu Greek ayuu ahaa ra'iisul wasaaruna Turki baasaboorada dadkaasi ay haysteen ama waqtigaas wadanku u lahaa waxa isku hoos qornaa Greega Turkiga iyo Ingiriiska saddexda luqadood bay qornaayeen kan waa baasaboorka ayday waxay qaatay 47kii ka hor waqtiga Ingiriisku haystay baasaboorkana sidan ayaa ku qornayd xagga sare British passport baa ku qornaa xagga hoosena Cyprus ayaa kaga qornayd intaa kadib markii labada dawladood ay xoroobeen baasaboorka sidan ayuu isku bedelay oo waxa lagu qoray xagga sare luqadda Greega waxa ku xigay luqadda Turkiga waxa ugu hooseysay luqadda Ingiriisiga sidaad aragtaan ayday baasaboorkan xataa Urdun ayay ku tagtay haddaba kan waa baasaboorka koonfurta kan kalena waa ka waqooyiga kan waxaad ku tagi kartaa Yurub iyo caalamka oo dhan si fudud laakiin baasaboorkan qobrista Turkiga kaliya Turkiga ayaad ku tagi kartaa dadka halkan ku nool badankoodu waxay rabaan in xuduudda la furo sidoo kale islaantan haddaba waxaan weydiiyey dhibaatadan xalkeedu muxuu noqon karaa ama maxaa lagu xallin karaa waxayna ii sheegtay in dadku imika ay kolley iska nool yihiin laakiin ay filayso in arrintan ay ku meel gaadh noqoto sidoo kale waxay ii sheegtay inay rajaynayso in dhibaatadan xal loo heli doono haddii ay beedhaahdo weliba dadkuna ay sidoodii hore u wada noolaan doonaan laakiin waxay ii sheegtay in iyadu ay ka shakisan tahay in qaybta kale ee Turkidu ay ogolaanayaan iyo in kale maadaama ay weli ka baqanayaan in dhibaatadii hore u dhacdo kale ay dhacdo way qaybta Turkidu dhulka inta ugu badan iyaga ayaa leh oo dhanka Turkiga ayaa dhul badan ilaa ay damaanad helaan aanay ogolaanayn in dib la isugu soo noqdo haddaba dhanka bari ee badda Mediterranean-ka jasiiradan waxaa laga helay kayd shidaal oo aad u weyn taasoo sababtay inay hor fadhiistaan labada ciidan ee Turkiga iyo Greega iyadoo ay xaq u leeyihiin qobrista Turkigu inay helaan qaybtooda shidaalka marka la eegayo xeerka caalamiga Turkish Republic of Cyprus has equal rights to gas fields. doorashooyinkii madaxtinimo ee u dambeeyay ee ka dhacay qobrista Turkiga waxa ku guuleystay musharax ka socday xisbigii ku dhaqmayay aragtida dawladda Turkiga ee xalka la raadinayay in la gaadho mideynta jasiiradan taasoo ah in labadan qaybood ay sii ahaadaan laba dawladood oo kala madax bannaan wax midoobis ahna aanay dhicin weliba waa kadib markii dadaalo kasta oo la isku dayay in lagu mideeyo ay fashilmeen taasoo weliba ay ugu muhiimsanayd dadaaladaas markii la horgeeyay golaha qaramada midoobay si loo mideeyo jasiiradan sanadkii 2004
kaasoo ay wakhtigaas diideen qubrusta Greegu. haddaba saaxiibayaal maxay kula tahay in mustaqbalka jasiiradani uu noqon doono? fikirkaaga nagula wadaag qaybta commentiga. ilaa halkan haddii aad soo gaadhay muuqaalkana waxaan kaa codsanaynaa inaad like-ta noo saarto, sidoo kale channelkan aad subscribe ta saarto. waa inoo iyo muuqaalka xiga insha Allah. aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal.